taariibiyaashii ugu badnaa sanadkan ayaa soo gaaray jasiiradaha Talyaaniga iyo Malta. Tirada guud ee dadka ay soo badbaadiyeen ciidamada badda Malta iyo kuwa Talyaaniga ayaa ah 566 qof oo isugu jira Afrikaan ay u badan yihiin Soomaali, waxaana dhintay ku dhawaad 40 qof oo badankoodu ka soo jeeday dalka Syria. 29 ka mid ah midadka dadkaasi dhintay waxa la keenay cisbitaalka magaalada Valletta ee jasiiradda Malta, halka tirada dadka kale ee la soo badbaadiyay iyo qaar ka mid ah midadkii dadka dhintay la gaarsiiyay jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga. Taariibiyaashan ayaa la socday doon ka samaysneed alwaax jilicsan oo cabirkeedu ahaa 25 mitir oo ay ka soo raaceen xeebta Liibiya, waxaana ay kula xumaatay bartamaha badweynta Mediterranean-ka. qayladaan kadib waxa ay heleen gurmad. ciidamada badda Malta ayaa sidoo kale soo badbaadiyay dooni ay la socdeen 81 qof oo tahriibiyaal ah, halka kuwa Talyaaniguna ay badbaadiyeen 2 doon oo kale oo ay la socdeen tahriibiyaal, waxaana gacan ka geystay badbaadinta dadkaasi markab xamuul ah oo laga lahaa dalka Denmark oo gooshay biyaha badweynta. dowladda Malta ayaa qayladaan xoogan xilligan ka muujinaysa qulqulka dadka tahriibiyaasha. wasiirka arrimaha dibadda Malta Dr. Giorgia Villa mar uu la hadlayay dhawaan telefishinka Universal waxa uu sheegay in midowga Yurub ay siiso Malta lacag taas oo aan lagu xalin karin arrimaha qaxootiga. The European Union is giving Malta money. There is an amount of money which is the refugee fund, which the European Union gives to Malta to help us with the problem. But this problem is not a problem which can be solved by simply giving money. It's not a question of money. Money does help, but Malta being a small country, you cannot create the opportunities, you cannot create the facilities, you cannot create the future that these people have crossed the desert and the sea looking for. midowga Yurub Malta waxa ay siiyaan lacago taasoo ah dhaqaalaha loogu talagalay qaxootiga si Malta looga caawiyo arrimaha qaxootiga, laakiin dhibaatadu ma ahan mid lagu xalin karo lacag, marnaba laguma xalin karo. Malta waa wadan yar, uma abuuri karto qaxootiga fursado, uma abuuri karto adeeg, uma abuuri karto mustaqbal, taasoo ah waxa ay raadinayaan dadka soo maraya halista badda iyo saxaraha. We cannot take more than 250 practically every year, so that they become part of the Maltese community, they start participating, they get a job, they have a family, they settle in Malta and they become part of the Maltese community. I mean, we cannot absorb all those numbers, and this is what we are telling the European Union repeatedly. It's not a question of money. ma qaadan karno dad ka badan 200 ilaa 250 qof sanadkiiba, kuwaas oo ka mid noqonaya bulshada Malteeska oo helaya ka qaybgalka shaqooyinka iyo la noolaanshaha qoysaskooda iyaga oo deegaan ah lana mid ah shacabka Malta. laakiin ma xalin karno tirada faraha badan ee qaxootiga na soo gaaraya. tani waa waxa aan mar walba aan u sheegno midowga Yurub, taasina kuma xirno lacag. I mean, you cannot buy the future. We cannot create opportunities for all these people to stay in Malta and settle in Malta. That is absolutely out of the question, simply because of the size of the country. isku soo wada duubo muhaajiriinta ugu badan ee ku soo biimeeya naftooda halista badda iyo saxaraha ee soo gaara Malta iyo Talyaaniga ayaa ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Syria iyo Eritrea. sidoo kale waxaa jira muhaajiriin ka yimaada Asia iyo wadamada dhaca saxaraha iyo galbeedka Afrika, waxayna dadkaasi ay ka soo cararaan colaado iyo saboolnimo. Axmed Nuur Ibrahim, Universal TV, Malta.